diidista iyo iska caabinta fulinta baaritaanada hanti dhowrka ma muujinayso oo keliya khatar maaliyadeed iyo halis maamul xumo oo ku qarsoon hay-adaha diiday fulinta baarista, balse sidoo kale waxa ay hubanti la'aan gelinaysaa hanaanka korjoogtaynta iyo hubinta in qoondooyinka miisaaniyadda iyo khayraadka guud ee dowladda ay hay-adahaasi u adeegsadeen si waxtar u leh dowladda iyo muwaadinka. kadib fulinta heerka qiimeynta khataraha ee hay-adaha diiday ka qaybgalka iyo fulinta baarista sanadlaha ah ee u hoggaansanaanta sharciga, xafiiska hantidhowrka guud waxa uu qiimeynta khataraha ku xaqiijiyey jiritaanka rasiidyo lacag qabasho, xukunno dhaqangal ah oo la xiriira ganaaxyo, xaraash iyo la wareegidda hanti, warbixinno rasmi ah oo muujinaya qabashada dakhli dowladeed oo aan lagu shubin laguna maamulin qasnada midaysan ee qaranka, kaas oo gaaraya 1,089,998.76 dakhligaas oo ay qabteen maxkamadaha darajooyinka koowaad iyo labaad ee gobolka Banaadir, iyada oo wasaaradda maaliyadda iyo xafiiska xisaabiyaha guud ay xaqiijiyeen inaan dakhligaas haba yaraatee lagu shubin laguna maamulin nidaamka qasnada midaysan ee qaranka. dakhligaas ayaa ka kala yimid ilaha dakhli ee kala ah la wareegid damaanad, la wareegid hanti lacag dhaqid awgeed, ganaax iyo xaraash hanti, iyo sidoo kale qabashada iyo qaadashada dakhli dheeri ka ah adeegyada dowladda. dakhliga dheeriga ka ah khidmadda adeegyada dowladda ee maxkamadaha qaarkood ayaa si sharci darro ah looga qaaday muwaadiniinta. sidoo kale warbixinta qiimeynta khataraha maxkamadaha rayidka ee u hoggaansanaanta sharciga waxa kale oo ay muujisay in maxkamadaha rayidku ay gacanta ku hayaan shaqooyin iyo howlo ka baxsan garsoor iyo fasiraadda sharciga.